waxa weeyaan dagaalkan wuxuu igu socday ilaa maalintan iskuursanay iyo ilaa macaawadaas ku soo ururiyo aniga iyo inta wax qabiso naga dhaxeeyo oo meel noo yaala haba yaraatay ma jiro kulanti waan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran janalkan Jabalaala TV ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa sheekadii Safiya Tusmo oo waji kala yeelatay codad kale oo sir ah oo la soo bandhigay Cabdi Ciise oo cadeeyay in uu qabo Safiya Tusmo yaa ka duubay codkan sirta ah inta aanan ku bilaabin warbixintan xasaasiga ah haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee aad ku timaado channelkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe aad saarato furtana gambaleelka si ay ku soo garaan barnaamijyada aan halkan ku soo baahiyo codad kale oo sir ah ayaa laga helay ninkii qaawiyey fanaanada caanka ah ee Safiya Tusmo sawiradeedana baraha bulshada ku faafiyay wareysi uu baxshay ayuu ku sheegay inuusan qabin Safiya Tusmo iyadoo taasi ay jirto ayaa markaan laga duubay cod sir ah isagoo sheegaya inuu qabo Safiya Tusmo uuna si xad dhaaf ah u jecel yahay haddaba ila dhageyso codkan sirta ah ee laga duubay وانا اسقبني وانا نشين وانا هباين نشين waxaan isku haynay wax weyn ma wareysigeeda raaca soo dhageysta xisideed u hadash qof nacayb qabameed amaya Soomaaliya indhiina qofka wax weeyaan intaad nacayb u qaadin oo ribaynin ribada way xunta intaad qofka ribaynin bal qorto qofkan fikirkiisa balbaad bal dhageysta imika inta diga baxdaan bal codkeedii waxay ku hadlayso gabadhan bal dhageysta aniga ma yenicabto ilaahay baad ku dhashay amaya jacayl baa ka muuqda wajigeeda muxub baa ka muuqda aniga way ka muuqda marka waxaan gashay hadii laga xumaanayo oo lagu wax weeyaan inta wada joognay dagaal lagu hayay hoose oo sidii loo soo kaxayn lahaayo wax weeyaan meesha looga soo kaxayn lahaa Hargeysa ayaa wax weeyaan lagu tala jiray in badan anu ma oran karo inta baxo waqtiga ma hadli karin anu nin hadlamayhi nin caanimo iyo Soomaali inuu iska dhaxaldo oo qof dumar ah yiraahdo heblaayinkeedii baan ma noqonayo gabadha sharaf bay leedahay magaceeda Ilaahay baa siiyay sida waxa uu anu abaan ahay talent baan leeyahay iyadoo talent bay leedahay keedii haduu Ilaahay barakay ma hayna ku xumaado ma waa inaan ku hambaliyo way qof dumar inaan ku yeesama taas aniga lagu atabo barta ataaka weyn laga mata soo iyo dadka baqaaraygu iyo aniga dadka America ugu timid walba wada qaadanay farxad wada qaadanay jacaylkay soo subaynay heesa qaadnay oo heesa isla qaadnay wala arkaya marka haddii nolosheeda la diidan yahay qofka muxibbadeeda aan siiyay la diidan yahay aniga leesho aniga waxa weeyaan wareysan waan bixiyay barina odayaasha dhaqanka iyo systemkii wax weeyaan ku jira anu dadkaas halkaasaan ka sheegaya maadaama aniga soo dhamaaday soo afjarmay wax weeyaan gabadhina aniga wax weey xumaan ima hayso idinku wada ogtii Soomaaliya aniga attack bal igu haya nolosheeda la taagaya nolosheeda kala la taagaya meel aan wax weeyaan dagaalkan wuxuu igu socday ilaa maalintan iskuursanay iyo ilaa macaawadaas soo caawimo joogno ilaa caawadaas igu socday bal koobi $20,000 baninka ku oranaya qof dumar koobi $20,000 keen hadii kale video aan ka hayo ama aanu aan ku jiro ilaa anu qof baan ahay anu miyaan qof ahayn anu awr lahayn bal Soomaaliya aqligiina iduu ka shaqeysiye anu ma garan karo arimaan jireedii waxaan jiray ma garan karo anu dhaqankan xun soo baxay ninka jeeda baan ahaa anu dhaqankii hore haysta baan qofka inta leeg gabadha meeqaamkeedu inta yahay ee nolosha inta joogto deemay doorateen haddii nin wax weeyaan baa dhaqan lahayn bal iduu aqliga shaqeysiye gabadha ma korma waxay soo gashay tutub iyo wax weeyaan ma qataari soo waxay ugu raacin aniga soo ugu raacin sharaf aan leeyahay soo xurmo aan leeyahay wax weeyaan wixii aan tusoo ugu raacin haade marka wax weeyaan in wixii aan ku soo jiitay aan ku keensaday wax weeyaan wanaagii sharaftii anigu gabadha marnaba xumaan lagama yaabo anigu sawirro iyo video iyo waxba la sheegay anigu dadka ka garanayo qof wax weeyaan nin naagti wax weeyaan Ilaahay isku baneeyo oo Ilaahay isku arsaaqay oo wax weeyaan ninku intuu iyagoo wax weeyaan wixii marka jiray uu banaanka keenayo wax weeyaan gurigoodii wax weeyaan intuu ka qaado wax weeyaan derbiga sare halka oray dadka way arka labadeedaba wada arka oo aniga ku xumaynayo iyada maxaa ku xumaynayo
haddaan isayna waa kala dhamaan karnaa wax weyn maaha laakiinse jacaylka na dhex yaala ka weyn annagu iyaduna way ogtahay inaan jecelahay annagu waan ogahay taas wax weeyaan laba cali isma weydiinayso laakiinse aniga ataagay ku socdaa ataag maaha xaggayga ka socda waa ataag meel kale ka socda ataag meel kale ka socda wey qof kastaan wuu ogyahay ataag beertay ka socdana wax kale maaha anigu siyaasadan iyo waxaan kuma jiro Soomaaliland hadii wax weeyaan hadda wixii halkan ka dhaca Hargeysa xumaanta halkan la saarayo xumaanta halkan loo soo gudbinayo anu ma sheegin xumaanta halkan ka dhacda Hargeysa wax weeyaan wax la faafinayo ay tahay oo la gudbinayo oo loo Hargeysa wax ka dhacay anu ma garan taatay laakiin aniga dagaalka way igu socday dagaal igu socday buu laakiin ninka la yiraahdo Soola ee Facebook-iga xidhay ee noloshayda wax weeyaan inaan hadlo ii diiday inaan hadlo ninka ii diiday waa ninka Soola inaan tuuq bay dhahday ninka ii diiday ninkaas waa ninka Tobiya ugu sheegay Tobiya ninka ugu sheegay way video uu leeyahay oo gaga hadlayo aniga ayaa la isku diray soo qale ninka waa kaas jooga halkaas maray waa been ilaahay ku gaaway ninka la soo xiro xagaa jooga Soomaaliland xabsiya ka buuxa waa la xidhl nin dhaqan la baaran dhaqan baan leeyahay odayaal baan leeyahay aninkay kala gooya dawlad baan leeyahay xidha haddaan dambi sameeyo haddaan qof waxay galanaya xidha haddaan wax lagu sameeyay aniga qabata dad dhaqankoodii sareeyo oo dhaqan sare meel sare taagan baan leeyahay oo laba cali isweydiinay aniga waa la soo qaban karaa waa la soo qabanayaa baa sheegtay 1 minute baa lagu soo qabanaya aniga hadday anigaas ugu cadaato oo arrinkaasi wax run ay ku noqdo lagu helo oo wax run xaqiiqo noqoto san u huba inaan dhimanayo ayaan u huba inaan arrinkaas jiro wuu i qabaa ma qabi waan qabaa marba marka ka dambeyso sheekadu waa mid weji kala yeelanayso wixii warar ah ee ku soo kordha kiiska Safiya Tusmo barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo baahin doonaa waad ku maasantaa daawashada aad daawata muuqaalkan daawade haddii ay tahay booqashadii ugu horeysay ee aad ku timaado channelkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe aad saarato furtana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan ku soo baahiyo mahadsanid bal idigu caqliga shaqaysiya gabadha ma korma waxay u soo gashay tutuub iyo wax weeyaan ma qataari soo waxa ugu raacin aniga soo ugu raacin sharaf aan leeyahay soo xurba aan leeyahay wax weeyaan wax wixii aan tusoo ugu raacin hade marka wax weeyaan in wixii aan ku soo jiitay aan ku keensaday wax weeyaan wanaagii sharaftii anigu gabadha xir marnaba xumaan lagama yaabo anigu sawirro iyo video iyo waxba la sheegay anigu dadka ka garanayo qof wax weeyaan nin naagti wax weeyaan ilaahay isku baneeyo isku xalaala oo ilaahay isku arsaaqay oo wax weeyaan ninku intuu iyagoo wax weeyaan wixii marka jiray uu banaanka keenayo wax weeyaan gurigoodii wax weeyaan intuu ka qaado wax weeyaan derbiga sare halkaas oray dadka way arka labadeedaba noqdo arka oo iyada ku xumaynayo iyada maxaa ku xumaynayo haddaan isayna waa kala dhamaan karnaa